ما شاء الله الله سبحانه وتعالى شيخك بركايو خير بدنها كسيو ولا الله قدال كسو قلي waxaynu ku jirnaa programkeennii aan kula taliye talo maqaadan talo wati Allah subhanahu wa ta'ala marka insha Allah waxaad ku soo dirsataan abudalhawan@gmail.com oo program aad iyo aad u qiimo badan aba qoysas badan baa ku liibaanay dad badan oo dhibaataysnaa ayaa relief iyo mataqaanaa wanaag ka helay walaalayaal soo dirsada insha Allah biidnillahi kariim sheekhuna alfaadil saa'ilkan kale ee ku jira gabdhaha waligu badnaayo kan waa nin weeyaan waxa uu yiri sheekh abudalha aad baan programkiisan u dhageystaan kula taliya tala maqaadan waan soo xaadiraa buu yiri imana dhaafo aad iyo aad baan sheekha u salaamayaa buu waqtiga badan uu nageliyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka u saara buu yiri sheekh wuxuu yiri waxaan ahay nin xaaso saddex caruurana waan leeyahay gabar baan qabaa buu yiri sida kale gabadhu waa ma sha Allah buu yiri aad bay wanaagsan tahay hadii cunay tahay buu yiri hadii ay wax walba tahay way noo fiican tahay buu yiri aniga yaa awlaadaba laakiin wuxuu yiri hinaasa ay galay nin aanu darisnahay oo saaxiibkay abuu yiri gabadhiisu waxa weeyaan tiimkay tagtaa nafteeda ka shaqeysaa maalintii uu guursaday iyo maanta waxaad moodaa buu yiri inay isku mid yihiin anigu sataydii waan ka dhaadhicin kari waayay buu yiri waxaan xataa ku yiri buu yiri waxaan doonayaa sida gabadha inaad noqotid gabadhii oo saddex caruur ay haysanay in aan ku fuuro buu yiri weyd saaran darteed weyd culays buu ka wadaaye ma doonayo buu yiri shaqolka aad bay ugu xiran tahay wayna ku dhageysanaysaa gurigaygu intii uu dumi lahaa buu yiri maxaad nagula talin lahayd buu yiri labadayada way dartiis baan gurigaasina uu dumayaa buu yiri falyatafadal mashkuuran maajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحضرت الدورة يا إنان أن له كلمة أن طور تشرب إلى له أنكور مريو سؤاشا جواب سيدة ويان دنبا وحابو سوى بدنيا أن أغحو محي من مسلمة وإلهي قبر كو أرزقي وقف دبر كو أرزقي أولادنا أولا شيء والنفط بكتشرية والنفط بكقاضية عجيب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي قلوبك يلها سوى تبارك وتعالى أو دين تاكو سوى سؤاشا وحنادا سؤاشا ووحي سوستي مدادا سنة لقيت شوقه ayaa su'aaliina la weydiinayo su'aal kamida baan weli maskaxdayda ka bixin wuxuu yidhi gabadh hilboon baan qabaa markaan arkana inaan mindi geliyaan damcaa buu yidhi haddaad xusuusataan su-aasha aadka oo la yaabnay horta marka koowaad waayahan dambe gabadhii sidan baan ku furayaa iyo waan bedelayaa iyo waxan oo dhan baa batay horta ilaahi ha laga boqo ragow tabaaraka wa tacaala midda kale haddee gabadh dariskeeda sida ay tahay inay iska dhigi karin baa laga yaabaa waayo hilibkan ilaahay baa keena dad baa si kasta iyagoo hilibka iskaga jaraya ilaahay iska jari karin dad baa iyagoon dan ka lahaynba hilib ilaahay uusan u yeelina tabaaraka wa tacaala gabadhase waxaan leeyahay mar hadduu hadda ninkii yahay dacwo gabadha waxaan leeyahay gabadhay haddiiba waddankani waddamada la joogo hilibku cudur buuba keenaaye hadduu ninkii uu ku leeyahay isa soo dhuub oo jiim tag oo maxaa leeya jirkaaga soo dhiso de waa wax wanaagsanay lacagtaas bixi dheh carruurtana hay dheh soo war fiican maa adiguna isa soo dhuub dhuubinaa isa soo dhuubayso adiga laftaad horta caafimaad bay kuu tahay biidni illahi tabaaraka wa tacaala adduunka dhan dhuubni baad raadinayaa waa midda labaade adig iyo ninkaagina waa isku sii daa'imaysaano jacayl iyo xubbi baa isku soo dhawaanaysaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala wax kuu diidan oo maanica hadduusan jirin ninkaa fikirku kuu soo jeediyey aniga abutalxa ahaana fikir wanaagsanba ilata inaad isdhuubto ood meelaha laysku dhuubo tagto ood socoto ood hilibka iska goyso ninka kugula taliyo maanta hadda annaga dawra noo socota caafimaadka maanta dhan waxaada lagu gurayey cuntadana iska yareeya oo sidan iska dhuuba
oo caloosha iska gooya oo hilibka iska yareeya maantoona lagu aqrinayo berida waa leenahay xataa waxaan rabaa inaan dhaho jaanis weeyaane jaaniskaa ka faa'iidaysa biidnillahi tabaaraka watacaala ninka waxaan leeyahay walaalow ha nooga duminin reerka gabadhu jiin bay ta yidhaahdo gabar deriskaa dhuubatay ee tanna may dhuubato maya saa reerkaa ku duminine tartiib ooga dhaadhici xataa day fahmi weydo aruur baa kuu joogta saddexe ayadana 4 bay ku tahay dhaqaalayso biidnillahi tabaaraka watacaala waxaanse rabaa inaan si hoos ah oo aan kor ahayn kugu sheego hadday gabadhu dabeecaddaasi socon weydo adigana inay nolosha ay kugu adkaato gabar kale ka agdhis oo ka garab guurso wabillahi tawfiiq taas dhuuban mid aad u dhuuban marka dambe raadso maadaama tan kugu cayishay ooda doonaynin inaad la joogto wallahu aclam